kulankan oo ah mid watashi lagu sameeyo dastuur la doonayo in dhawaan loo sameeyo maamul goboleedka Jubbaland si looga gudbo dastuurkii ku meel gaarka ah ee ku dhaqmay jirta Jubbaland waxaana madasha goobjoog ka ah guddiga dastuur sameynta Jubbaland qaar kamid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya odayaal dhaqameed qurbo joogta ka soo jeeda Jubbaland iyadoo dhammaan taageeray qorshaha dastuur sameynta Jubbaland kulanka oo saacado qaatay ayaa dadkii ka soo qayb galay waxay guddiga u soo jeediyeen su'aalo iyo talooyin la xiriira dastuur sameynta Jubbaland waxa qeexaya ma jira hay'adaha lookalka iyo jooyada dhaqaalahooda iyo maamulkooda meel ku soo dhacay dastuurka muxuu qoran tahay iyo soo hoostagayaan shuruudaha loo baahan yahay madaxweynaha iyo xildhibaanka labada waxaa qayb ka ah isma condition markasta way meesha waa laga helaa magaranaysa da'da iyo la tixgeliyo tamahaas doonaya inuu qabto xilka madaxweynaha ama xildhibaanka waxaan dhihi lahaa madaxweynaha lagu soo koobo 35 yaana laga weyneyn si fursad ugu helaan dhalinyarada aqoon-yahanada muwaadiniinta Soomaaliyeed doonaya inay qabtaan xilka ugu sarreeyo maamul goboleedka ka weynaan kara madaxweynaha 35 laakiin dadka doonaya inaan ugu xirin inay 35 ay ka weyhiin waxaa laga yaabaa in dastuurka lagu qoro 45 fursad aysan u helin dhalinyaro firfircoon aqoon-yahaniin ah xadka ugu hooseeya xadka ugu hooseeya 35 la gaarsiiyo haddii uu ka sameeyo arag absolutely dhinaca miidyada aad baa u mahadsan tahay su-aashaas waxay ahayd xorriyadda warbaahinta waxay qayb ka tahay xuquuqda asaasiyaadka ah ayay ku jirtaa miidyada keliya guud ahaan maanta oo dhan xuquuqaadkaas waxay ku jiraan waxaan uga boodayay bacdama ay jiraan xorriyaadka asaasiga ah dhan waa laga hadlay waana ilaashan yihiin baa la yiri dastuurka ilaalinaya maxkamadda sare ku sii ilaalinaysa marka miidyada taas bay ku jirtaa sanqaasay marka gabagabadii markuu kulanka soo ilaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka madaxtooyada Jubbaland Cabdiqani Cabdi Jaamac waxaan marka idinka mahadcelinayaa si gaara kaalintii aad ka geysateen ee dhanka su'aalaha dhalinyarada waana filaynay markaan idinla su'aalaynay su'aalo noocaas inaan heli doono waxaa kaloo soo qaada waxaa ka mid wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowladda federaalka waxaa ka mid ah waxwada qaybsi qodob dhan baa dowladda federaalka ugu jira oo ah resource sharinka kaana xaaladiisu waa si gaar ah waxaa la soo jeediyey sarreynta sharciga oo faarax soo jeediyey gaar ahaan diinta islaamka oo dadkii ku jiray qaxeen isaga ra'yigiisa uu nagu weydiin isla bisha dhamaadkeeda waxaan asuumaad u sameynaynaa 300 oo qof oo aan u bixinay constituency assembly ama ergooyinka inay ka doodaan ay tahay drafting loo keeno ergooyinkaasna ay 5 maalmood ku noqon doonaan akhrin doonaan ku maalgashan doonaan wax soo jeedin doonaan wax ka bedel sameyn doonaan kadibna ay u voodi doonaan ama ay cod u qaadi doonaan Cabdiqani Xasan Walqor dheere TV-ga caalamiga ee Royal Nairobi.